ilhaan cumar oo dhawaantan laga soo doortay magaalada Minnesota ee cariga Mareykanka ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho sida warbixinta warka ay noogu soo diray wariyahana magaalada Qardho Nimca Xasan Bakaal. ilhaan cumar iyo wafdiga ay horkacaysay oo ay kamid ahaayeen wasiirka maaliyadda iyo xildhibaano ka tirsan Puntland ayaa looga hortagay duleedka koonfureed ee magaalada Qardho waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka gobolka kan degmada odayaal haween iyo dhalinyaro xildhibaanada ayaana salaan la dhex qaaday dadkii soo dhaweeyay salaantaasi kadib waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Qardho waxayna dadkii soo dhaweeyay kula hadashay iyo gudoomiyaha degmada Qardho barxadda weyn ee magaalada Qardho. walaalahayga aan jeclaa sharaf baa idinka muuqato qiimaha idinka muuqdo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan idin imaado oo idin soo salaameeyo oo anigoo socdo aan idin hambaliyeeyo oo idin mahad celiyo. dadka waxay leeyihiin ilaahay markaa igu horeysay Qardho ku soo dhawow aniga Qardho hore baan u imid cabaar baan joogay Qardhigu cusba laakiin maanta waxay ii tahay taariikh in aan imaado oo si sharaf leh la ii soo dhaweeyo dadkeygii aan u imaado oo ay soo dhaweeyaan marka quruxdii iyo qiimadii idinka muuqato waxaan ku faraxsanahay inaan waqti idin la qaato oo maanta aan idin la joogo waa mahadsantihiin waan soo dhaweyno xildhibaanad ilhaan cumar iyo duqeeda Axmed Xirsi oo runtii farxad noo ah in maanta halkan ku yimaadaan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa magaalada Qardho waxa uu leenahay ku soo dhawaada magaalada Qardho oo ah magaaladeennii runtii aad iyo aad baan ka mahad celinaynaa xilligii lagu jiray doorashada Mareykankana waxa weeye aflaas awaalidin taagnaa waan soo duceeynaa waan soo taageerinaa insha Allah taala maadaama guulaysateen anagoo insha Allah waxa hartay xaqiini marka guushiini iyo xaqiini baa hartay marka waxa weeyaan aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa waxaan ku soo dhaweynaa magaalada Qardho waxaan soo dhawaada magaalada Qardho oo centralka Puntland ku soo dhawaada insha Allah waxaan rajaynaynaa saacado yar baa nala joogtaan waxaan ka jeclaan lahay inaad muddo badan nala joogtaan sida uga bogataan magaalada Qardho iyo nawaaxigeeda iyo qaabkeeda iyo cimiladeeda intaba inaad ka bogataan laakiin maadaama waqtigu yar yahay haddana qorax taaganahay waxaan rajaynaynaa xildhibaanad ilhaan iyo wafdigeedan ayaa inta ka gadaal booqday xarunta agoomaha Daarul Xanaan Qardho iyo isbitaalka guud ee magaalada Qardho xildhibaanada oo booqanaysa xarunta agoomaha ayaa balan qaaday inay ka warhayn doonto agoonta Qardho idin soo booqdo waan idinka warhaynay waan ogaay in aad iskoolkan wax aad ka barataan golahan aad joogtaan in arday agoon ah ay ku nool yihiin Qardho oo wax ay ka bartaan waxaan aniga aan xoog saarayaa oo aan ballan qaadayaa in aan ku soo dadaalno sidii taakuleynta aad na weydiisateen lagu soo heli lahaa waxaan u baaqayaa in wasiirada iyo gudoomiyayaalka iyo xildhibaanadiina Puntland iyagana sidoo kale in ay ku dadaalaan sidii taakuleyn ay idinku ku soo shaqeyn lahaayeen intaasi kadib Marweylahan iyo wafdiga ay horkacaysay ayaa qada sharaf balaaran loogu sameeyay hotel Gufure dhammaan marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay qada sharaftan ayaa madasha ka hadlay halka abwaanada qaar ay ilhaan ku amaaneen qaab suugaaneed iyagoona ku amaanay dadaalkii dheeraa ee u soo gashay xildhibaanka gobolka Minnesota abaar xooluhu hadeen dhulkuna uu xaaluf yahay dadkuna xayraansan yahay sidii roobxa sa iyo xareed lagu oombaxaa xubbiga aan ku qabnay ilhaanay xoogsaday xanaan iyo nabad ku war adii kale waxa saygeeda soo dhawaada ku soo dhawaada gobolkiini dadkiini dalkiini seedi ku soo dhawow adiguna mar labaad iyo saddexaad dalkaaga iyo dadkaaga anagoo kugu faraxsan waxaan ku leenahay hambaliyo waa idinku hambalyeynaa xilka aynu wadaagno mas'uuliyadda aad noo hayso Soomaaliya oo dhan hadlayso wasiirka maaliyadda Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay madasha isu jecel yahay iyo sida la isu misro iyo sida wax la isu dhaafsado idinka ka hadlay anagu waxaan rabnaa waliba haddaan xukuumadda Puntland anoo ka wakiila waxaan rabnaa inaad noo baahisaan
oo annaga nafsay waxbaan ka rabnaa qardho inaad kor uga dhigtaan xukuumad ahaan oo laba dowlo ay noqoto waxaa baaldegayay markay tartanka ku jirtay oo u tartamaysay golaha wakiilada Minnesota degmada 60B haddii ay ku guulaysato ku soo baxdayna waaba la ogaa dabaaldegii la dhigay maantana farxad bay noo tahay waxaan leeyahay anoo ku hadlaya afkayga iyo afka gobolka Karkaar bulshada ku dhaqan soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad waxaan kale ugu mahad celinayaa golaha xukuumadda dawladda Puntland oo madaxweyne u horeeya golaasha dawladda oo markasta barbar taagnaa soo dhaweynta Ilhaan iyo waftiga ay hogaaminaysay gabagabadii Ilhaan Cumar ayaa u mahad celisay dhammaan mas'uuliyiinta maamulka Puntland iyo bulshada reer Karkaar sida wanaagsaneed ay u soo dhaweeyeen ugu faraxsanahay in fursad yar aan u helnay in aan magaalada soo aragno aan tagno iskoolka agoonta ay degan tahay isbitaalka aan soo aragno taas waxa waaye wax aan uga mahad celiyo aabahey Nuur oo aad iyo aad ugu dadaalay in markaan Soomaaliya imaanay aan fursado u qaadana meelo badan inaan soo booqano oo aad iyo aad noogala soo shaqeeyay oo markaan tartanka galayayna 9 bilood Puntland ka soo laabtay oo Minneapolis noogu imaaday qabowgii iyo dhibaatadii iyo wax kasta nala joogay oo garab taagnaayo ila dadaalayay marka aboo mahadsan tahay waxaan kale rabaa inaan adeer Cabdullaahi iyo mas'uuliyiinta kale kulli oo isxil saaray in aniga booqashadeyda ay ahaato booqasho oo taariikhi ah oo ii fududeeyay in aan inta aan qabanayo inta meelo aan arkayo waqtiga yar aan joogo ii fududeynayo iyagana aadaan uga mahad celinaya Nimco Xasan Bakaan TV-ga Soomaali Cable magaalada Qardho